Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelkeena channelka iftiinka period. Maanta taariikh midoodo waxay idin wada barnaamij cusub oo la soo baxay ma ogsoon tahay oo ka bixi doona channelka iftiinka period. Fadlan la soco oo subscribe saar oo hana ka maqnaan inta uu barnaamijku socdo. Inoo bilaaba waxaan idin wado maanta. Ma ogsoon tahay inay qaaradda shanaad ee ugu badweyn adduunka inay tahay qaaradda Antarctica. Ma ogsoon tahay sidii uu ku bilaabmay dagaalkii labaad ee adduunku. Wuxuu ku dhacay markii ay ciidamada Jarmalku ku duuleen dalka Poland. Ingiriiska iyo Faransiiskuna ay ka cadhoodeen oo ay ku dhawaajiyeen dagaalkadana dalka Jarmalka. Ma ogsoon tahay qaaradda ugu qabow adduunka inay tahay qaaradda Antarctica. Ma ogsoon tahay inay bidaartu sabab tahay isagoo saacido hormoonka loo yaqaan testosterone. Ma ogsoon tahay inay shimbirtu leedahay 2 caloolood. Ma ogsoon tahay in qaaradda ugu weyn adduunka ay tahay qaaradda Aasiya. Ma ogsoon tahay in dalka Madagascar laga hadlo luqadda Malagasy. Ma ogsoon tahay in dariska ugu dhow Soomaaliya ay tahay Suuqdar, haddana ay degan yihiin dad Yamaniin ah. Ma og tahay in dalka Seychelles ay yahay 4 jasiiradood, jasiiradda ugu weyn ay ku dhex taalo magaalada madaxda lana yiraahdo magaalada Victoria. Ma ogsoon tahay Thomas Edison ninkii ikhtiraacay laydhku inuu noolaa intii u dhaxaysay 1847 ilaa 1931. Ma ogsoon tahay Henry Ford asaasiyay shirkadda Ford inuu noolaa 1866 ilaa 1947. intaasaan kusoo gabagabeynay barnaamijkeena maanta. Waa anigoo qayso ila soconsiinaya barnaamijkeena. waxaan kaga tegayaa sida iyo fi amaan illaahi wa xifdihi.